xildhibaan Roble Muuse Xoosh oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Boorama ayaa goob fagaara ah oo isugu yimaadeen qaybaha kala duwan ee bulshada halkaasi ka sheegay in aanay jirin cid la xisaabtanta dawladaha hoose ee dalka waxaana arintaas uu ku dhaliilay in shaqadeedii ay jabtay wasaaradda arrimaha gudaha ee Somaliland oo uu sheegay in ay haba yaraatee aan la xisaabtamin dawladaha hoose ee dalka yaa la xisaabtama horta run markaan sheegno markaan riyeliga sheegno dawladaha hoose markii aan leeyahay war laba baa laga baqaa adduunyada de wax kula xisaabtama inuu jiro imika ka baqayso la xisaabtan ka dambeeyo inuu jiro adduunyadiya oo wasaaradda arrimaha gudaha kale aanu nahay ama maxaan ku dabagal kale inuu jiro horta dawladaha hoose cid lama xisaabtamay madax banaayay wasaaradda arrimaha gudaha ee accountable-ka u yihiina dayada la weydiinayo mas'uuliyadda yada leh iyada weydiin doonaysiin laakiin dawladaha hoose hadba sidaan anagu u dhigno ba u shaqeeyaan marka run la sheego 12 ama 13 ama degmadu noocay doonaan noqotee inta joogta sida u shaqeysan bay wasaaradii ka shaqeyn lahayd iyo cidii maamulka isteerinka la hayn lahayd halka waad ku qaldanteen oo lahayd saano aanu dhignay bal anagu raacay oo taasi waa sida oo dalka dhan basaasa xildhibaan Roble oo hadalkiisa si watay waxa kale oo dhaliilay in golayaasha deegaanka dalka dhalinyaro la doorto waxaana arintaas uu ku sifeeyay in dhalinyaradu haba yaraatee wax isbedel aan soo kordhinayn waa sida uu hadalka u dhigay takalana waxa weeyaan horta waa alla ka cabsiga Ilaahay qofku inuu Ilaahay mas'uuliyadiisa ka cabsado taasina dhalinyarada reer Boorama dadka waxa la hay waa nin iyo shakhsiyadiisa iyo ku xiran tahay taas laakiin degmada Boorama dhalinyar aqoon la soo bixiyo maamuli dhalinyar aqoon loo maamulaysa dalkani ma jirto waxa maamulaya dalka oo lagu inuu dalka gabigiisa hagaago xagga sarorta ka soo hagaago oo inagu cisku ogaano bulshadu inay cisku ogaato inaka dhalinyarta hadduu PhD ha noqdo hadduu yimaado system qaloocan imanaya ka aan buu la qaloocanaya sheekhu weyn hadduu yimaado dawladda hoose ka caawinaysa isagu raaci ka weyn dad keentiin laakiin waxa bulshada oo tan iyadoo toosto inagu degmada Boorama markaynu nahay inaan isagaajino oon soo doorano dad maxaan ku dhaday anu waliba lagu noqdaan oo lahaa marka horta sheego odayaashii waaweynaa ee naga waaweynaa ee kotonjir u yaryahay oo Ilaahayna ka baqaya lagu noqdo hadalkan ayuu ka jeediyay xildhibaan Roble Muuse Xoosh bandhigga buugaagta Boorama Book Fair oo ah markii ugu horeysay lagu qabto magaalada Boorama waxaana dhalinyaradii aqoonyahanka ahayd ee goobta ku sugnaa xildhibaan Roble ku ganeen su'aalo kala duwan sida loo qabtaan golihii hore kadib markii uu ku sameeyay goobta jabaan hada waxa lagu leeyahay in la soo yareeyo dadkooda sidii meesha ay u taado sidii caadiga tabkeena caadiga ah ku sameeyay sidii isku xisaabtay markii hore tumudii sidii loo soo xisaabtay hadii ay ku yidhi ma uu keenay doorada 22 xildhibaan ee hadda sida ay degmadu wala dhimay baa waxa laga dhigay tiro go'aan baa laga dhigay degmooyinka aadii oo dhan ee 22 ah wali the final mine laakiin goluhu wakiiladu sida ugu codeeyay waxay yiraahdeen 13 xildhibaan ma ka dhigno golayaasha deegaanka degmooyinka aadii weeyaan marka su'aasha ninkaasi weydiiyay waxa ahayd sidee loogu xaq soori doonaa reeraha degan degmada كلي سيدي أرتينا كقبيلات بارس كدورنا سوما كلي به أدور رير صدق حياة ما كبوضة قارن كرو ده رير كاس إسكالي واحد حير كينو يلا أساس دقمة اللوجت ريرو يقول كتير بديهين ونا وكلا قاطع صدق حياة ما رير كلي وكلا قارن كرا أساسا تاني كجوابي هدول نصيب كود ريرو ستان لقدان وصدق حياة ما رير بدي يحفظ قاطنا ده نصيب كده عبد الرزاق عمر نعاد وليو wararka telefishinka codka bariga Afrika Boorama